Haramcadka waxa uu ka tirsan yahay xayawaanada gaatinta wax ku dila. Hadda wuxuu u gaatamayaa ugaar yar oo deera ah oo daaqayso doog cagaaran oo halkan ku yaala. Deerada waxay ku dadaalaysaa sidii kaga baxsan lahayd haramcadka, balse wuxuu hayaa luqunta. Si darro kama baxsan karto. Haramcadka waxa uu ka mid yahay cadowga koowaad ee ugaarta duurjoogta ah. Marka uu qabto xayawaan, waxa uu ka jaraa halbowlayaasha dhiigga waraabiya jirka. sidaan ayuu nafta ku dhaafiyaa xayawaanada. Inta badan wuxuu ugaarsadaa xayawaanada naasiriyada lagu magacaabo. Muuqaalka xiga wuxuu noqonayaa gooshan waxay u gaatamaysaa lo'gisi meel bannaan cid la fadhido oo nasanayso. Inta badan lo'da markii ay daaqdo ay dhergto waxay fadhiistaa meel bannaan ah si ay u raamsato. Lo'gisidan war uma hayso in loo gaatamayo, balse nolosheeda ayaa halkan kusoo gabagaboweyso mar dhow. Libaaxyada inta badan marka la fiiriyo goosha iyo aarka waxaa inta badan cadow ah waa goosha. Gooshan waxay sahan u tahay raxan libaaxyo ah oo gaajaysan oo isugu jira kuwa yaryar oo caananuug ah iyo kuwa waaweyn. Hadda waxay u gaatamaysaa inay weerar toos ah ku qaado lo'gisidan, balse lo'gisida ma lahan wax dareen iyo cabsi ay ka qabto weerar kaga imaan karo xayawaano sida libaaxa, burwaaga iyo haramcadka. Si lama filaan ah waxaa hal mar soo booday gooshii. Lo'gisidii naxdin darteed hal mar ayay booday, waxayna bilowday inay iska caabiso ama iska celiso gooshan. Hardan iyo dagaal badan kadib waxaa gacanta lagu dhigay lo'gisidii. Gooshii waxa ay qabatay luqunta, halbowlayaasha ayay ka qabatay. Lo'gisidii waxay ku dadaalaysaa sida ku baxsan lahayd. Horey waxaa loo yiri doqon calaf ma laha. Halkan waxaa kusoo gabagaboway noloshii lo'gisida. weli waxay ku dadaalaysaa sida ku baxsan lahayd, balse nasiib darro kama baxsan karto gooshan. Goosha aad ayay uga xoog badan tahay, waxayna ka haysaa luqunta iyo halbowlayaasha dhuunta. waxaa mar qura soo wada yaacay libaaxyadii yaryar ah, waxayna bilaabayaan inay cuntadan dhinac ka bilaabaan ay ka cunaan. libaaxyada waxaa caado u ah inay u wada socdaan si koox ah. Raxantii libaaxa waxaa hogaamiyo goosha iyo aarka. Aarka waa ammaanduulaha ugu horeeyo, gooshana waxay ka amar qaadataa aarka. haddii aarka halkaas ka maqan yahay waxaa xukumaya goosha. Gooshan iyo carruurteeda iyo dhammaan goolaha kaleeto oo la socdo waxay u wada cunteynayaan si wada jir ah. Libaaxa waxaa caado u ah inuu hambeeyo xayawaanka markii hilibkiisa uu cunayo, balse neefkan weli fari kama qodna. waxay rabaan ilaa ay xad inay ka cunaan hilibka ilaa ay ka dhergaan. nasiib darro waxaa halkan kusoo wajahan dibigii la socday raqdan halkan lagu cunay. waxa uu kala buriyey libaaxyadii. waxa uu isku dayayaa inuu kala buriyo libaaxyada. raqda halkaasay ku baaba'day, wayna dhammaysteen hilibkeedii. muuqaalkan qayb saddexaad waxay noqonaysaa dagaal ba'an oo u dhexeeyo aar iyo haramcad. haramcadkan waxa uu u gaatamayaa aarkaas. aarka oo iska difaacaya haramcadka ayaa hal mar soo booday, waxa uuna buriyey haramcadkii. libaaxa wuxuu ku daba jiraa haramcadka. haramcadkana wuxuu gaatin ugu dhex jiraa geedaha dhexdooda. labadooda waxaa ka dhexeeyo dagaal aad u adag. haramcadka waxa uu dareemayaa baqdin fara badan, waxaana ku daba jiro libaaxii oo doonaya inuu nafta dhaafiyo. waxa uu u gaatamayaa haramcadka si uu u qaban lahaa si fudud. libaaxii waxa uu u fadhiistay geedaha dhexdooda. haramcadkii waxa uu iska wataa cunto. halkaas ayuu wuxuu ku cunayaa neef yar oo deera ah. ugu dambeyn haramcadka asigana waxaa nafta dhaafi doona libaaxan, sida uu u dhaafiyey nafta deeradaas yar ee miskiinta ah. waxa uu jabsanayaa lafaheeda baahi darteed, balse haramcadka asigana waxaa kusoo wajahan dhibaato aad u culus. waxaa ugaarsanaya libaax. haramcadka si uu uga badbaado dhibaatooyinka kasoo wajaha libaaxa, inta badan waxuu ka fuulaa geedaha dushooda. hadda waxaa kusoo foollay libaaxii, waxuuna ku carari doonaa geed dushiisa si uu uga baxsado naftiisana uga badbaadsado libaaxan. muuqaalka qaybta afraad waxa uu ku saabsan yahay dagaalka ka dhexeeyo dameer farowga iyo libaaxa. dameer farowgan daaqaya waxaa kusoo wajahan gool
gooshaasoo isku dayaysa inay qabato, balse dameer farowga miskiinka ah uma suurtagalayso inuu baxsado sababtoo ah waxaa la hayaa qaybta dambe ama saynta. gooshan waxay isku dayaysaa inay qabato ee dhulka dhigto dameer farowgan. dameer farowga wuxuu dadaalayaa siduu kaga baxsan lahaa, balse nasiib darro kama baxsan karo. waxaase ilxumaa kor uga daawanaya dameer farowga saaxiibadiisa, balse nasiib darro kama dhicin karaan. saaxiibkooda hortooda ayaa lagu dilayaa oo lagu cunayaa. dhammaantooda naxdin darteed ayay la fiigsan yihiin. hortooda ayaa lagu cunayaa saaxiibkooda. halkaas waxaa kusoo gabagaboobay noloshii saaxiibkood. dhegooda waxaa kusoo dhacaya cabaadka ka yeeraya saaxiibkooda, waxayna rabaan inay ka dhiciyaan, balse uma suurtagalayso. libaaxa waxa uu hayaa luqunta, halbowlayaasha ayuu micyaha kala galay. muuqaalkan qaybtiisa shanaad wuxuu ku saabsan yahay deero yar oo fiigsan oo libaax meel bannaan cidlaa ku helay. deeradan waxay u cararaysaa dhanka libaaxa uu ka jiro, balse kama warqabto halista kusoo food leh. waxay u tagtay halkii libaaxa uu ku sugnaa. waxay la fiigsan tahay marba dhinacay ordaysaa. waxay toos u abbaartay halkii libaaxa uu ku sugnaa. markii ishay ku dhufatay, dhinac kale ayay u carartay. si degdeg ayuu libaaxi u soo booday, way kuftay waxa uu qabtay qoorta. halkaas waxaa kusoo gabagaboobay nolosheeda. waxay noqotay cuntada fudud ee goosha ee maanta, kuleelka halkan ka jira awgii. meesha waa meel saxara ah. muuqaalkan qaybtiisa lixaad waxa uu noqonayaa raxan libaaxya ah ayaa waxay biyo ka soo dhex qabsadeen deero yar. lixdooda waxay isku dagaalayaan deeradaas yar, kuma filno. mid walba dhinacay uu ka qabtay, waxay ku hardamayaan siday u qaybsan lahaayeen. mid seenta ayuu qabtay, mid madax ayuu hayaa, mid caloosha, midba dhinac ayuu ka hayaa. balse ma ahan mid ku filnaanayso cunto ahaan. nolosha ayay ku jarjarayaan. libaaxyada qaar waxba kama soo gaarayaan sababtoo ah neefkii waa neef yar. mid walbana wuxuu ku dadaalayaa sidii uu ku heli lahaa cadkiisa. waxaa halkan kusoo gabagaboobay muuqaalkii koobnaa oo ka hadlayay ugaarta iyo ugaarsadayaasha duurjoogta ah. muuqaalkan kiisa xigo aan ku kulmayno. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.